waxaan goor dhaweyd isagana haddaba intii aan idaacadda soo gelin khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi oo aan weydiiyay bal hadda waxay kaga falcelinayaan hadalkii madaxweynaha. walaal Axmed waad mahadsan tahay hadalka madaxweynaha waa runtaa waan dhageystay arrinta runtii ayaan darada ah ee khudbada madaxweynaha maanta ku jirtay waxay ahayd inuu madaxweynuhu dadka si ogaana uu mislead gareeyay arrinta doorashada iyo wada hadalkeedu muddo dheer bay soo socotay waxa la yaalo wixii la hadda la taaban karo oo xisbiga kulmiye madaxweynuhu ka tanaasulay ma jirto arrinta la isku hayaa waxa weeyaan in commission-kan maxaan ku rahdaa la kala diro oo 14 bilood sheekadoodu ay hadda marayso iyo arrinta labaad oo ah in si cadaalad loo qaybsado xubnaha commission-ka oo laga dhigo 9 xubnood oo xisbi waliba 3 xubnood u yeesho ilaa imika waxa ay ka hadlayaan waxa weeyaan commission-ka waa la kordhin doonaa xilli cadi ma jirto annagu waxaan leenahay maadaama xeerkiiba hadda baarlamaanka yaalo maadaama xeerkii iyo arrintiisa ama qaybsiga iyo wixii oo dhan baarlamaanka yaalaan hadda labada xubnood ha lagu daraga 9 xubnood ha laga dhigo dabadeetana aynu sidaas doorashadii ku galno marka Khadar oo idinku waxa doonaysaan ma waxa weeyaan commission-kan ay muddadiisu dhammaan doonto November inuu sii jiro oo laba kaliya oo lagu daro dabeetana sida doorashadii lagu galo mise waxa diidantiin gabi ahaanteedba waxaan soo jeedinta ah ee marka horena ay labada xisbiye kala qirayaan inuu ahaa wax saddexda xisbi isla qaateen oo haatan aad idinku isrogteen oo aad diidantihiin walaal wax saddexda xisbi isla qaateen ma jirto waxa weeyaan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid waxa ay ku heshiiyeen January sanadkan in commission-kan waqtigoodu markuu dhamaado commission-ka cusub tiradiisa 9 laga dhigo sidaas ay ku heshiiyeen annaguna tii un baanu hadda leenahay waayo waqtigii commission-kani waabu dhamaanayaaba doorashada ka hor buu dhamaanayaa marka mar walba waa qasab maadaama doorashadii ka dambeynayso in commission cusub uu qabto doorashada soo socota marka maxaa ku jaban in ay commission-kan hore dhowrka bilood oo ka hadhay shaqadooda ay shaqadiisii hayaan idinkuna asaa ku taageertaan marka aad aqbashaan in la magacaabo commission-kii cusba dabeetana kooda ox ay la wareegaan doorashadiina sidaa ay u qabsoonto maxaa ku jabanaya ku diidantiin doodii cusba ugu dambeysay la isku hayay waxay ahayd June hal kala direeyo August ma commission-ka cusba hal magacaabo taasi hadda muhiimba ma waayo waqtigii baabayna soo galay waxa muhiim dhismaha commission-ka cusub annagu waxaan leenahay si commission cusub oo cadaalad oo loo siman yahay la helo waa in commission-ka laga dhigaa 9 xubnood hadda laga dhigaa sabab dib loogu dhigaana ma jirto sabab loo yiraahdo waqti dhow aanu ka dhigi doonaa ma jirto haddaynu doorasho diyaar garoobana haddu xeerkeena qabiyahay haddu baarlamaanka yaala mar walba baarlamaanka waa la maraya xeerku uu maraya arrintiisa ama qaybsiga ku jirta arrintii kootada haweenka iyo maxaan ku dhahaa dadka la haybsooca ayaa ku jirta maadaama xeerkii oo qabiya ah oo dib loo hagaajinayo hadda baarlamaanka yaalo waa in xeerkii oo 9 xubnood commission-ka laga dhigay baarlamaanka la geeyo laakiin idinku doorasho inago laakiin idinku waxa doonaysaan inay doorashadu muddadeedii ku dhacdo commission-kiina hawshii qabyada ahayd ee idin taale aan haatan la gelin marka sideed isu qabadsiinaysaan labada doorashadu waa inay waqtigeedii ku dhacdo taasaanu taageersanahay taasaanu ogolahay shaqada hadda taale iyo sida loo qabanayo waa wax laga wada hadli karo waa wax la isaga iman karo waa waxaan horena tanaasul uga aqbalsanayn haddana tanaasul uga aqbalsanahay laakiin arrinta muhiimkii waxa weeyaan waa dhismaha commission-ka cusub oo anagu leenahay war 9 xubnood ha laga dhigo si siman ha loo qaybsado si dadka inoo garqaadaya ay dadina wada matalo oo si siman inoo wada matala ay noqdaan 12 December aynu sida doorashadii ku gallo kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga Somaliland Khadar